أنا وعبد القادر محمد شاء الرحمن أو هذا المجمع دلنتا SBB أما ضمان دلنتا الصومالية ميلو بأيجوران وحن تعسيت إلى ودرينا ضمان الذي قرابة أما دلنتا يكون أمام البلد مصر يميلو آدي يا نوحنا هذا دلنتا مجمع SBB آدي يا نوحنا وأنا تعسير كجيبنا نتكلم عن لينا دلنتا ما أهل من الأمور الرئيس يكون أمامنا البلد وأمام بدن يا رشيد هذين الله دلنتا SDB waan ka hadalnay waxyaabo badan ayaa ka soo dhigay sida waayada wacyigelin badan ayaa ka soo dhigay ilaa hadda dhalinteena ay dhamaanayaan aad ayaan ugu xumaad hal marka aan ka dhalin Soomaaliyeed oo dhibaato aan qabin oo muxuu ahay marka aragtida sideeda dhalintan ma sha Allah walaaliin ardaan ka dhamaan badaan ayaa u qolnaa qof walba Soomaali ay muwaadin ah oo ka xumaanaya waxaan rabaa inaan mid ka hadlo aan u hadlo dawladdeena Soomaaliyeed aan u sheego midaas mid kala maahan waxa weeye dhalinta Soomaaliyeed waxa ku kalifay inay dalka ay aadaan ay shaqooyin ay ka doontaan waxa weeye dalka ayaa dawlad qoman oo dawlad dhalinta shaqaalaysan jirin dhalinteena mar walba waxa ku dhibaataysan yihiin dalkeena saan ognahay dawladdeena Soomaaliyeed mar walba dhalinta waxa lagu qaataa saan ognahay qof walba uu ogyahay mid tribalism waxa la dhaho oo qofka lagu gelinayo qabiil ahaan lagu keeno shaqooyin lagu geliyo dhalinta markaas saas ayaa kalifaysa in ay baxaan dalka ay badal ay ku dhamaan qof walbana waxa ka soo qaaday maanta hooyada Soomaaliyeed ay xalay ilaa shalay ooynaysay wiilkeedu ku dhintay badda waxa ka soo qaaday maamada hooyada aniga dhasho kale aad ayaan ugu xumahay hadaynu nahay SBB insha Allah waxaan rajayn doonaa in waxyaabo badan ka soo dhino wacyigelin badan ka soo dhino waxaan ka codsanayaa bulshada Soomaaliyeed waxaad jeceshiin mar walba in YouTube ama Facebook soo dhex dhigtaan idinkoo u adeegsanaya dhan qabiil in laba qof markay saarnaan qabiiladooda kala saartaan maanta waxa taagan midnimada Soomaaliyeed maanta waxa taagan dhalinteena Soomaaliyeed ma ahan dhalinyaro in hebel ma ahan ee waa dhalinyaro Soomaaliyeed in aan wada istaagno aan mar meel walba aan joogno ka wada istaagno dhalinteena ku dhamaanay wada sida aan u joojin lahayn sida dawladdeena Soomaaliyeed aan uga hadlayn walaarta lagu shaqaaleeyo because qof hadduu shaqo fiican helo laga ma yaabo inuu dalkan u jeclaado muhiimadii uu aaday waxa waaye shaqo la'aanta marka waxaan ka codsanaynaa dhalinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan hadaynu nahay Somali Peace Boys inay u wada istaagaan gacmahana ay is wada qabsadaan ay u istaagaan sidii u mideyn lahayd dhalinta Soomaaliyeed maanta sidaan ogahay ma jirtaan u malaynaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku hagaagsan meel walba aad tagtid waxaa loo suubiyey gobolaysi iyo hebel loo kala baxay maanta waxaan leeyahay gacmaha is qabsada gobolaysi uu dhamaaday magaca Soomaaliya aan u istaagno aan ka hortagno dhibaatadan ee dhalinteena ay ku sugan yihiin aan u tagno dawladdeena Soomaaliya aan ka codsano dhalinteena in la shaqaaleeyo because Muqdisho week walba waxa ka soo baxaan 300 400 dhalinyaro oo ka soo baxay jaamacadaha wax tan hadda waxaan ka codsanayaa dhalinyaro badan oo hadda ila joogto oo SBB sida Cabdullaahi Cabdallatiin iyo sidoo kale wariyaheena qaaliga ah ee hadda aan naga dheereen oo nala joogo oo mar walba jecel in magaalada ka qaato isagana waa ku maasan yahay Philippine waxaan leeyahay iyo Cabdullaahi Cabdallatiin aad iyo aad ay u faacsanay sida waqti fiican ay siiyeen ay maanta ay la joogaan gacantan aan saysano waxaan leenahay Soomaali hamidooda dhalinyarteena hamidooda hooyo walbana insha Allah waxaan rajaynaynaa inay mar kale ay ooynin hooyo waxaan leeyahay hooyo samir iimaan wixii ka dhalinyarta ka dhamaatay Allah ka siiyo ma ahan marka ugu horeysan hooyo Soomaaliyeed oyso ka hor waa la leeyahay dhalinyarta iyadoo si walba loo soo jira maanta waa tiiba socoto oo badii ku wada dhamaanayaan marka aad iyo aad ayaan waxuna hadeenahay dhalinyarta magaca SDB wadato insha Allah waxaan rajayn doonaa in waxyaabo badan soo saarno hadii Ilaahay yiraahdo dhalinta Soomaaliyeed waxaan leeyahay ha istaagina jawaab badan ayaan u baahanahay inaan u soo wada istaagno inaan mar walba hadda Afrika joogno Aasiya joogno America hadda joogno gacmaha inaan isqabsano aan u istaagno dhalinteena maalin walba kaliyaha looga baxayo Masar lagu laynayo saxaraha ku dhamaanayo biyaha inaan gacmaha soo wada qabsano oo istaajino oo wacyigelino si dalkeena Soomaaliyeed ay wax uga qabsadaan dawladdeena Soomaaliyeed waxaan leeyahay dawladda Soomaaliyeed maanta chance fiican madaxweynaha aan ugu fariifarayo inuu dhalinyarteena uu ahay si wanaagsan u soo dhaweeyo in loo fiiriyo qofka uu ahay meesha uu ka soo jeeday qabiilkiisa loo fiiriyo ma ahan in loo fiiriyo midnimada Soomaaliyeed muwaadin Soomaaliyeed inuu yahay waana la socda meel walba Soomaaliya in ay ka shaqeynayaan shaqaalooyin badan oo ka yimaada dalalka dariska sida Ethiopia Kenya Uganda iyo Rwanda ay shaqooyin weyn ay ka haystaan waxaan leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed baa xaq u leh dalka inuu ka shaqeysto inuu wax ka qabsado marka waxaan leeyahay muwaadinka Soomaaliyeed waxaan leeyahay laga shaqaaleysiiyo dalka aadin madaxweynahan waxaan fariin ugu furaya inuu dhalintaas si degdeg ah ugu soo hadlo dhalintaas ku baabaaysa dalka Masar iyo Liibiya badan
والسلام عليكم ورحمة الله. أنا وصلت وأنا SBB يوم أجت من غير عمل